qaar ku tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo gargaar daawooyin ee deersay shacabka ka dhaqan deegaanada Sabiid iyo Caanoole oo ku tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ee maamul goboleedka Hirshabeelle. shacabku iyo waliba ku muuqatay dhibaatooyin ka eedan dhinaca xaaladda nololeed gaar ahaan dhinaca caafimaadka. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayana anfidi gargaar dhinaca daawooyinka shacabka ka dhaqan deegaanada Caanoole iyo Sabiid oo dhawaan lagu xoreeyay Al-Shabaab oo warbaahinta dawladda la hadlay iyo waliba kuma hadnagana gargaarkii oo sameeyay ciidanka dawladda Soomaaliya. خديجة محمد مولى لا يا مهدي اسكالي دولتان سومالي داوى نوكا انتي إلهنا كمهدينا بعدي هذا دولتان كمهدينا إلهي داوى الله مقدرو ومهد سني ومدغطر الله قديمة انتو تيكوريس الله قديمة قول الله السير محق إيو الله فحنون يفيش كل إيدي هذا انت قلت لي سيدا انت قريب magacay Faadimo Faadimo Maxmed inteed kinta Sabiidi Caanoole dhalinyarada oo dalka hooga ayisiye daawada inta laga hay caruursanayeen waana loo sii daawada qorninyo iyo shirin waagar waana loo sii waagar hadda marka maxaa dareenkaaga soo yahay maxaa dareemaysaa maadaama alxamdulillah daawa u sanay dareenkayna jawaan wada dhigin أحمد صالح عندنا عيادة دولة الصوماليين ومانتا دعوة دولية أنا كني عبدنا وأنا حسيني هاي أنت تقولي لا سبيت هاي عنك سيلو هاي عنك فيرها يوم تاي حالك هاي عرش هاي داوينا هاي ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhawaan ugu buuday howlgallada naskajara xoreynta Al-Shabaab iyo gargaaridda shacabka Soomaaliyeed ee markaasayti ka dhaqan deegaanada Al-Shabaab lagu horeeyo wayna shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka gobolka Banaadir yoona dhawaanadu iyo wadana caawinta ciidanka xoogga iyo waliba garab surumowsho Maxamedan telefishinka Jinawkay Baydhabo.